muxuu Pep Guardiola ka yiri guuldaradii niyad-jabka lahayd ee kooxdiisa ka soo gaartay Newcastle. Tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa qirtay in kooxdiisu aysan ka faa'iideysan fursadihii hore ee ciyaarta, taasoo sababtay in guuldaro 2-1 ay kala kulmaan Newcastle United Sabtidii. City waxay ciyaarta soo galeen iyaga oo rajeynaya inay hoos u dhigaan farqiga ay Arsenal hoggaanka ku hayso horyaalka Premier League. inkasta oo ay heleen fursado waaweyn oo ay gool ku dhalin karaan, gaar ahaan kuwa uu lumiyay Erling Haaland, haddana ma aysan ka faa'iideysan. Newcastle ayaa ka faa'iideysatay qaladaadka City kadib markii Harvey Barnes uu daqiiqadii dambe ee qaybta labaad u dhaliyay goolka furitaanka, inkastoo uu gool u soo celiyay difaacooda Ruben Dias, taasoo keentay in ciyaartu ay noqoto 1-1. haddana Barnes ayaa mar kale dhaliyay goolka labaad oo natiijada u adkeeyay kooxda ku ciyaartay St James Park. Guardiola oo la hadlayay BBC Match of the Day ayaa sheegay in kooxdiisu ay ku fashilantay inay sii wataan dardartii ay ku soo galeen bilowgii ciyaarta. Guardiola wuxuu yiri, Newcastle waa koox aad u xoogan, ciyaartoy heer sare ah iyo tababaro fiican haysata. Sidaa darteed nasiib daro caawa ma aanan awoodin inaan sii wadno qaab ciyaareedkii fiicnaa ee aan soo wadnay. Wuxuu intaas ku daray, waxay ahayd ciyaar kulul oo ay labada dhinacba muujiyeen dardar iyo adeeg. Guuldaradan ayaa City ku reebtay cari iyo niyad-jab iyaga oo weli rajeynaya inay gaaraan hogaamiyaasha Arsenal. Maalin wanaagsan saaxiibayaal, meel walba aad naga daawanaysaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee nagu hadlayay wararkii ugu dambeeyay kubadda cagta. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. Haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biiro oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.